cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa maanta si adag uga jawaabay hadallada faragelinta ah ee maalmihii ugu dambeeyay ka soo baxayay madaxda dawladda Soomaaliya ee ku saabsanaa heshiiska ay Soomaaliland la gashay shirkadda Imaaraadka ee DP World waxayna odayaal dhaqameedkani si isku mid ah ugu jawaabeen mas'uuliyiinta dalkaasi madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre iyaga oo ku sheegay inay yihiin mas'uuliyiin riyoonaya sidoo kalena waxay bulshada kale ee Soomaalida iyo adduunyadaba farta ugu fiiqeen xaasidnimada mas'uuliyiinta Muqdisho waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana hadaladoodii kamid ahaa ceebtu wax ma tarto Farmaajo xamar kuma ogina waxaanu ku ognay gaalkacyo sagaal madaxweyne ilaa iskula soo noqon maayaan sagaal ka madaxweyne quraynu ku ogeen madaxweyne quraynu ku kala googoon madaxweyne ku soo noqonaya ma jiro isu taliya anaga loo talimaysan DP World waxa leeyahay wixii aad gasheen inuu ka noqon mayno ilaa qofka ugu dambeeya laga dhintay idinku daada ka noqotaan ama baqataan ama carabowdaan idinka idii taala eerayna oo soo dhaweynayna heshiiskii horeyba u jiray ee baarlamaanku waa ansixiyay ee dawladdiisii ilaa ansixisay waanu taageersanahay madaxweyne adiga dalka lagu doortay iyo ku xigeenkaaga adiga meeshii door u ah Soomaaliland haday dhaqaalaheeda tahay haday nabadgelyadeeda tahay haday midnimadeeda tahay haday horumarkeeda tahay madaxweynaha lagu igwadayo oo haysta kalsooni shacabka madaxweyne waa lagu garab taagan yahay ku dhiiro wixii aad dan u aragto Soomaaliland u ah madaxweyne haday barbara tahay haday Soomaaliland ba tahay meeshii dan u ah Soomaaliland adaa lagu doortay madaxweyne horta maxaad ogaataa in sida lagu garab taagan yahay ninkan waxaanu leenahay dikiitiisa wadariyaato kala ku daree war haddaydan meelba haysanba meelba oo garoomadii iyo dhulkiiba ay diyaaradu ku soo degayeen iyo dekadii meel walba haddii la idinka qabsaday oo hordoolkiinii la dilaayo meeshana ka hadlaysaan anigu garan maayo meela ka hadlaysaan afkooyi iyo xamar waa 30 kilomitir kama taliyade madaxtooyadu buu fadhiyaa sidoo berbera markaa u soo hujuumaya uu leeyahay berberaan tagaya waxa yaa la idinka dhaadhicin yaa la idin baacsan idinku kartiba leeynugu ogaay de kartidii muujiya waxaanu leenahay Farmaajo marka dalkaaga waxba ka qaban kari weydaba dal kale doonata in dalaan baanu taa waragnaa iyo nacasnimo ka muuqatay qoomihii iyo lafihii baana dhaxyaal adna maanta aad soo buuday waxaanu isallowsiinaynay baad xasuusiso waxaanu isallowsiinaynay liqaynay ee nabad ka doonaynay ee walaalada iyo islaam mar dambe ay daar isku dhici yaa xasuusisay saaka waxbaad noo tartay waxba nabaad yeelin aad baa wax noogu tartay waxba nabaad yeelin waxaanu leenahay colaad baa inoo dhaxaysa dhinaca kalena barasaabka gobolka Togdheer ku xigeenkiisa duqa degmada Burco iyo xubno kamid ah xildhibaanada golihiisa deegaanka ayaa si adag u duray maamulka xamar iyagoo si cad ugu sheegay inaanay colaadna kaga calaf qaadeen xaasidnimada aanay meel ku gaari doonin waxayna tilmaameen in dawladda Soomaaliya madaxda iminka joogta ay noqdeen kuwii ugu xaasidsanaa isla markaasna ay ka xun yihiin horumarka ka socda Soomaaliland Soomaaliland waxay ku dhawaaqday gooniisutaageeda sanadkii 1991 maanta ilaa maalintaasna waxa ay ku talaabsanaysay jamhuuriyadda Soomaaliland horumar istaba joog heshiiska shirkadda DP World wuu dhamaystirmay shuruudihiisii waana ay soo wada mareen hay'adihii ku shaqada lahaa waana wada ansixiyeen Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa maba lulatee maxay leeftaa war wax uu ka hor istaaga ma hayo Farmaajo aan haynin Khayraan haynin hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaga falceliyay hadalka Khayre waynu sabood gareenaynaa maanta oo taangiyo lagu ilaaliyo Farmaajo Khayre oo faqashii dib u soo celiyay oo habran mayno ummadda Soomaaliland way midaysan tahay xuduudeedu way midaysan tahay inta aad kaaraha kugu ilaalinaya xamar kugu ilaalinaya iyo amisoomta xamar kugu ilaalinaysa marka ay faraha ka qaadeen dawlad noqoto marka cid la hadal oo cid la xisaabtan badan oo reer Soomaaliland markay idaacadaha ka hadlayaan waxay yiraahdaan walaalaheena Soomaaliya inayna nimanka walaalahayn iyo halkii ka joogto inay iyagu muujiyeen oo aanay waxba ku ogoleen oo wanaag ku ogoleen oo horumar ku ogoleen oo 28 ka sanadood xaasidnimo la taagan yihiin inay taasiga ka timi oo dhalinyarada iyadan 20 jirada aan faqash inay maqleen mooyaane aan arkin inay nimanka hadalkooda ay qarsanayeen inay maanta maqlaan in haweenka iyagu maqlo cidii aan joogin 1988 ama cidii aan garaadka lahayn cadaawadda nimankaasi fogaatay inay maanta fahmaan ilaahay baan ugu mahadnaqay wuxuu yiri xaasidnimada hatta kuwii la Soomaaliyada ahaa bu xaasidaya wuxuu yiri suurtagal ma aha
in garoowe iyo hargeysana nabad ahaadaan muqdishona ay nabad ahaan weydo suurtagal maaha buuri difaaca dalkeena diyaarinahay inaan ku bixinayno hantidayda inaan anagu direyska qaadanayno Soomaaliya waa isdaqaanaa maaha maanta midaan isbaranayno horeynu soo aragnay iminkana inagii baynu oo wax cusub oo soo kordhay ma jiraan dacwad kasta oo aad naga gudbisaan waxaanu aaminsanahay inaan anagu ka adkaan doono go'aankii geesinimada lahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka qaatay gardaradii cadaanka ahayd dagaalkii cadaanka ahaa ee maamulka xamar ay iclaamiyeen ugu horeyn waxaanu bogaadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaatay Mustafa Cismaan magaalo warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Burco.